dhaqaaqno ka dawlad ahaan dawladda Soomaaliya waxaan ka hadlayaa sahul Soomaaliya waxaa laga maarmaanaa dadka dawladda federaalka ka shaqeynaya inay maankooda ay ku jirto inay dawladdan tahay dawlad federaal ah aniga laftayda dawladda dhexe waan ka shaqeyn jiray laakiin waxaa ii muuqata markaan imid stateka iyo markii aan joogay federaalka aad baan u kala duwanaa aniga laftayda markaan stateka joogo markaad federaalka joogto stateka dad ka shaqeeyay inay hawl qaran hayaan xataa aadka uga muuqato hawsha qaranka adahay dadka stateyada joogay ma aha qabaa'il meel ku ururay ma aha waa dad kamid ah federaalka dawladda federaalka kamid ah oo heer oo shaqo qaran haya saa darteed qofka federaalka joogay waa in uu maankiisa geliyaa maxaan ku dhahaa degmada u dambaysa Soomaaliyeed markuu shaqeynayo waa inuu ku xisaabtamaa waana inuu ogaadaa inay wixii federaal tahay oo asaga shaqada uusan qabanaynin dad kale inay qabtaan ay tahay deedna uu meeshooda u baneeyaa tusaale ahaan dastuurkan hadda dhaqaaqila baan anu ka shaqeyn jiray waxaa laga yaabaa annaga wasaaradda dastuurka keliya oo weliba 3 hay-adood ay ka shaqeeyaan oo 3 hay-adood mid baarlamaanka ay tahay midna ay tahay guddiga madaxa bannaan midna ay tahay wasaaraddii 3dooduba waxay leeyihiin advisors wax la soo qabta oo la shaqeeya ayay leeyihiin wasaaradda keliya mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay 18 qof ay ka shaqeeyaan oo documentiga yarkaa ka shaqeeyaan markaasaa waxaa weeye wax anagii overlap u noqday oo waxaan anagu ka shaqeyno ayay guddigii kalena maalin damba ka shaqeynayaan markaasay guddigii kalena maalinta labaad kasii daba shaqeynayaan wixii oo dhan overlap ay noqday while hal qof oo advisor ah uusan ka jeedin Jubbaland aan laga helin oo laga yaabo inaan laga helin South West oo laga yaabo Galmudug aan laga helin oo laga yaabo inaan laga helin Puntland aan laga helin oo dastuurkaas kala shaqeynaya sidaa darteed markaan dastuurka keeno on aadno outreach aadno on meelaha aadno waxaan imaanaynaa dad aan warba ka hayn oo wax mashaqo kala haynba oo iska imanaya markaan imaadno cid meeshan ku wacyigelisa malaha in dastuurka barta malaha cid kala shaqeysa malaha marka anigu waxaan aaminsanahay dastuurka si seriously in looga shaqeeyo sidaa darteed haddaan hadalkayga kusoo noqdo kow waa in aragti federaalnimo dalka in lagu hogaamiyo suu dalku isula socdo oo wax la isla qaato laba dalku waa in mar kasta waa in siyaasadda heshiis laga sameeyo yani meesha qalbiga ama wadnaha u ah wada socodka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed waa siyaasadda markii hore siyaasadda ay ku kala tagtay haddeertan aad arkaysan siyaasadda ay ku soo kala tagtay maalinka dhaweyta xamar si ay u wada socoto waxaa laga maarmaanay siyaasadda in heshiis lagu yahay qof kasta haddaad aragto oo kule dalkan daacad u ahay wadani baan ahay waxbaan qabanayaa haddana aan ogolayn in la wada fariisto oo heshiis siyaasadeed la sameeyo dalkan laga sameeyo qofkaas waxa uu sheegay beentii wadani ma aha dal dan kama laha waxaa waaye qaran dumis waa Soomaaliya marka qodobka labaad waxaa waaye waa in la helaa heshiis siyaasadeed waa in la helaa waqti heshiis lagu sameeyo waa in la helaa qodobka saddexaad ee muhiimka waxay tahay oo runtii laga maarmaanka waxay tahay war dastuurka yarka aan haysano iyo xeerarkaan haysan aan ixtiraamno haddii heer state la joogo iyo haddii heer federaal la joogo dadka Soomaalida ee mas'uuliyiinta ee siyaasiyiinta waxaa lagu imtixaanay in dastuurka qarka laga istaago oo la jabiyo oo la iska dhaafo dadku heshiis bay galeen waa heshiis bulsho heshiiska bulsho in la ilaaliyo la rabaa si loo ilaaliyo oo haddii meelaha qaarkood waa kaan sheegaynay dastuurkeenu meelaha qaarkood dib u eegisku yaa ku socota u baahan yahay haddii meesha wax laga waayo intii la isu imaado heshiis kale laga waayo ilaa heshiis qoran way kane heshiis kale oo qornayn xataa ha laga gaaro laakiin waa in la ilaaliyo waxa heshiiska meesha ku qoran waa in la ilaaliyo taasna waa iyadana waa qodob kale oo runtii muhiim ah ana waxay la tahay marka dadka Soomaaliyeed haddii ay federaalka iyagu doorteen haddii ay ixtiraamaan dastuurkooda ay ixtiraamaan wadajirka siyaasadeed iyo midnimada siyaasadeed la ixtiraamo waddankan wuu wada soconaya wuuna dhaqaaqaya haddii intaas waxaa waaye ay maxaan ku dhahaa wax la yeelo
ama intaas lagu socon waayo waa la isla meeraysanaya si reer waqooyigu dheheen waa ila meerayso sheekadaasa soconaysa maasanta